يا برشادة اسكو كيليو إساقا كسبري كسولي دادك كلمية ووردا taageerayaasha xisbiga kulmiye ee xaafadda Jaamalaye ee magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay been abuur ay sameeyeen bay dhaheen wasay hadalka u dhigeen taageerayaal sheegtay inay yihiin xaafadda Jaamalaye ee xisbiga wadani taageerayaasha xisbiga kulmiye ee xaafadda Jaamalaye ayaa sheegay in xisbiga wadani uusan hal xafiis iyo hal cotoon uusan ka helin xaafadda Jaamalaye dadka reer Jaamalayena ay yihiin dad codkooda ku taageeri doona xisbiga kulmiye musharaxiisa Muuse Biixi Cabdi dhalinyarada xaafadaasi ayaa si xun uga carooday hadal ka soo yeeray bay dhaheen dhalinyaro xaafadaha kale ee Laascaanood kuwaasi oo sheegtay bay dhaheen xaafadda magaceeda aan loo baahneen xilligani in magacyada xaafadaha la kala sheegto waxaan halka ka salaamay dhammaan dhalinta xaafadda Jaamalaye in muujinaya inay yihiin xisbiga kulmiye dhammaan dadka xaafadda Jaamalaye waa kulmiye wax wadani sheegan kara ma jiro dad shalay media ka hadlayay oo sheeganaya xisbiga wadani inay yihiin xaafadda Jaamalaye waa dad ay wadani soo been abuurtay oo laalish soo siisay xaafadda dhammaan Jaamalaye waa kulmiye xisbiga uu hogaaminayo Muuse Biixi cid sheegan karta xaafadda Jaamalaye ma jirto dhammaan gobolka Sool waxa weeye kulmiye waanu taageersanahay dhammaan xisbiga kulmiye waxa iska le reer kulmiye waxa iska le reer Jaamalaye cid ay kala xigsanaysaa ma jirto xafiiskan walow aan wali gacanta lagu hayo oo la qalabaynayo oo maxay tahay xadhigii laga jarin baa waxaa shalay naga soo gaadhay dhaleecayn ay dhaleecaynayaan xafiiska nimankan isku sheegay inay yihiin wadani oo aan wadani wax xafiiskan ay ka og tahay iyo wax ay ka waxaynaysaa midna ma jirto xaafadda Jaamalayena waa xaafadaad u ballaaran waa xaafad dhalinyaradeeda iyo dadkeeda iyo odayaasheeda waayeelkeedu ay isku wada duuban yihiin waa xaafad gacmaha haysata ma aha xaafad la oran karo hadeer waxa weeye shalay xafiiskii laga been abuurtay ee la yiri xafiiskani Jaamalaye waa xafiis Jaamalaye aan xaafadda ka mid ahayn baan waxaan u cadeynay qura inay xaafadda Jaamalaye oo xafiisku ku yaalo uu taageerada dhalinyarada leeyahay rag iyo dumarba ayna mas'uul ka yihiin inta hadeer hareerahayga taagan iyaga xafiiska iskale iyaga loo furay iyagaana maal gashanaya yihiin inay Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici in ay siiyaan bay diyaar u yihiin lagu eedeynayay hadallada ku qoran ka soo yeeray dhalinyar xaafadda Jaamalaye aan matalin waxaan u sheegnaa dhalinyarta Jaamalaye inaan nahay xaafadda furuheedii annagu halkan taaganahay maanta aan ku soo shubanay xisbiga kulmiye waxaan ku taageernaa gudoomiyaha Cabdikariin xaafadda Jaamalaye waa mahadsan yahay hadalladaana ka xalqaato والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسب الكلية حافظة Jaamalaye أنا halkan uga jeedinay dhaleecayn rag shalay ka hadlay xaafadda Jaamalaye oo cambaareenaya xisbiga kulmiye oo aan leeyahay idinku hadda xisbiga jirtaan xisbiga iska jira ku qanacsanaada anagu waxaan ku qanacsanahay xisbiga kulmiye oo xaafadda ka hirgeliyay wadooyin badan oo wax badan qabtay waxaan leenahay dhamaystirka xisbiga kulmiye ayaa leh waana taageersanahay soo ma taageersanay xisbiga Sikriye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News